قبصه. Grab the mic. Yeah. تايدي ولا شيء. ما يسوقش. تلفونك 7 دقائق قبصورت دي. تلفونك بالله كويسو. يا فلات وي جو قبصو. يا مركز كسو جوابك. لكن هادو سيدا كوgu taagan yahay. It's very hard inaynu hello. Okay? Mar labaad baan kugu soo celinayaa bal mar labaad intaan kan kaa gooyo. I'll try one more time for you. Waaye. Okay. haye hadda soo bood barawa kana soo bood ya waaye maanta dhaliilo badan baynu ku sii daynay qoladii la odhan jiray madaxdii Puntland darajo kasta oo ha yeesheen dhaliishaasoo keenaysa dagaalkan la iclaamiyey beri hore ee ilaa caawa dhicila dadkii waa dhaga barjoobeen way yaaban yihiin annagii xaafadaha iyagii iska joognaan balaayo qabin baa warwar ku jirna hadhiya habeen ninka looga yeedhay bal hawd guntii ama ayaanan hawd odhanne reserve area meesha la DDS halka ee galaadi iyo haddii bukuray meel kasta looga yeedhay iyo ninka looga yeedhay Indian Ocean dhinaceeda kale iyo calowla iyo halka iyo bandarbeyle bandar qaasim dhulka looga yeedhay ee meesha la keenay ee meesha lagu hayay bilaha maxaa lala damcay dagaalkaas muxuu ahaa maxaa loo socday what's the point maxaa meesha ka socda gabadhii soo qaban kari waaye markaa bal gabadh kale aan ku dayi doonaa dumar adiga waxaan ubax garaaday ma joogtaa gacanun baa kuu taagan mana soo jawaabaysid waaye waxaan u malaynayaa dadkii inay kala hurdo tageen waayo waqtigiina waqti dambaa la yaab ma lihidin 400 ilaa 500 baynu ahayn hadda 170 baynu maraynaa ma garateen waayo dee waa gartiin dadku waa seexanayaa wax garaaday inaad armad qabsatid qabadda xaggaaga aading buu ku leeyahay ka jawaab waaye السلام عليكم نيكا واتساب كوتشرو وسلام يا مقعاقي ماشي تشوكتو والله علمنا لي وهذا كور بان سو وحي ايه لو waa dhamaystay fakarkaygi laakiin meel yar baan rabaa inaan ku laabto Axmed Abdismaan uu joogo Sweden kullaaba Axmed ina adeerow waxa aan la yaabanahay oo had iyo jeer anigu kuligay ka fajaca waxa weeye nimankan harti ee dawladda federaalka ku jira absolutely santanina iyaga u ololeynayo xaraan iyo xaqdarro ugu ololeynayo absolute roolkoodu muxuu yahay sababta ay la aaminsan yihiin ninka la saxaanood laga soo doortay ninka boosaaso laga soo doortay ninka gaalka laga soo doortay dhulkiisa ninka la ku gorgortamayo asagu sababta uu u aaminsan yahay maxay tahay taasi waa isweydiin inaad waa su'aal qiimo leh oo wax ku oola waa 60 xildhibaan oo daarooda meesha jooga gowdhe hoos haddaad xitaa daarood uga degto nimanka kablalax baa jooga hoos haddaad uga degto nimankii harti baa jooga juuq iyo jaaqba waa laga laayaa waxaad moodaa gabdho ma garanaysaa shisheeya guursado meel fog la aaday oo halkaa ma garanaysaa inta loo geliyey cabaayad yar la yidhi meelaha iska fadhiista wiilkii yaraa Cumar Carte Qaalib lalaaya Sacad Muuse ay ilmaadeerka ay Muuse bixina waa ka uga ololaynaya ka khudbadaynaya meesha maalin walba isaga xildhibaanadoodii horboodaya oo danta Hargeysa iyo go'itaankeeda iyo wixii ka shaqaynaya xaggan as federaal ula fadhiya iyaga laftooda inay toosh ku shidaan bay ahay oo ilaa warnimankan ma Soomaaliba mise Soomaalida go'aysa ay halkan u fadhiyaan waa qodob muhiim oo weeye inaad wad ku socda wate علمنا اللي هو waxaan ku sheegayaa ilka abees hoos ka xariirsan horta reerka isaaq la yiraahdo iyo cid taageertaba hal mid ay ku wada socotaa mid ay ku wada socotana waxa weeye in la barnaamijyo go'itaankana way ka wada socdaan xamarna waxa loo fadhiyaa nuujaar weeye aragtida in goboladaas ay haysato duulaal lagu soo qaado dadkaas rabitaankooda lagu horyimaadana waa ka midaysan yihiin
laakiin waxaa ilaahay labada xaniyood boogdiyey ee aan raganimo lahayn waxaa weeye ninka ka soo jeeda deegaankiisii oo la isku haysto aamusan hal gabaraa ka hadashay gabar baa ka hadashay waxaan is yidhi xaniyihiiba ilaahay gabdhuhu maanta noo gudbay gabar keliya ka nacam billah yes arrinta kale oo la yaab kale waxaa weeye arrintan hadda caawa laga hadlaayo shakiga weyn lagu abuurtay annagu ummaddu hadday shakido oo waddadii ay ku socotay mugdi ka galo dee waddo aad istiri halaq baa fadhiya ma mari karti inaad toos isaga bixsid maahane nacam billah sax anigu aad baan ugu hambalyeynayaa dadka hartiga halkan ku jira waa dad qof walba aragtidiisa u soo jeediyey kana midaysan inay dalkooda horaystaan afkaaraha kala gedisan oo ay qabaanna isku ixtiraamaya absolutely aad iyo aad taas waa uga mahadcelinayaa midda ii soo baxday anigu ilaa caawa markii afkudhay waa dhegaysanayey afkaaraha dadkaan dhegaysanayey shacabkaa waxay ka midaysan yihiin deegaankooda inay horaystaan laakiin cilada soo socota iyo maalinta maalinka waxa daroowa madaxtooyada waxa ay si saxa markay noqdaan baa mashaakil taagan yahay صح ciladu meeshay ka jirtana waxaa weeye niyahow dadkan meesha ku jiro oo hartiyad afkooda wuxuu batay tukaraq afkooda horta kow tukaraq haka daysan ilaahay afka ha gooyo absolutely annagu caraf fog baan qabnaa gar adag baan naga maqano caynabaa naga maqano oog baa naga maqano dhul ilaahay oo dhan baa naga maqan absolutely nacam billah waxay naga maqan inaadaro waxay naga maqan oo ugu dartaa waliba bartilmaameed ha u noqdeene salabangaal ninka la yiraahdo sharcigooda waa gacanta ku haya iyo baarlamaanadoodii waxooda wuxuu halkan ay isku leynayaan buu nimankan habar jeclay iyo nimankan habar yunis dhulkan mabay lahayn oo waxa lahaa niman u gaariyaan maxay isugu leynayaan bal hadda u fiirso waa ninkii ra'iisul waa baarlamaankooda ay marka Faysal xalay waraaba ka keentay asagoo uu garab taagan yahay ninka baashada dhow wuxuu beeshaas tagan koonfurta gobolka Sool iyo beeshaas koonfurta gobolka Sool absolutely bal arrinta meesha taagan waxay tahay dadkan meesha ku jira anagu tukaraq ciidanka uma naasoo kacay ortaari nin ma jeertay oo midiyana anagu ciidanka uma soo kacay tukaraq uma soo kacay صح والله tukaraq hadii dagaalka iyo anjirtaha xaqiiqada inuu ciidan imaadeen صح tukaraq maxay yaala absolutely dadka meesha ku jira afkoodu habbato labada gaasamo waa absolutely thank you jazakallah khair waa qodob loo baahan صح tukaraq cid u socotaa malahan ajeedaheenana tukaraq maahan ajeedaheenna tukaraq ha dhaafo annaga maaragtay dhibaatada taagan waxay tahay haddii ay dadku si toosa ay ugu socdaan ay wax u ogyihiin meeshaan dad baa u heshiiyey jabuutiya shir lagu qabtay ummadan marna gumaysta u fakarayo wuxuu yidhi aynu dadkan qabiilka iyo cadifada isugu yimaada aynu kala fogeyn oo marba qayb ku daray intii hadhayna beelo soomaaliyeed oo abdi bisir waxay isugu yimaadeen isirtiin baa alaabtii maxay beelu ka yimid alla aqoon ugu heshiiyey xalay nin baa waxaan isku haysanay aan gurigiisa ku booqday oo dad kaloo martiya la joogaan baa wuxuu yidhi arrimaha soomaalida inta iska waraysanay wuxuu yidhi shirkii likowda milyan daawanayay buu yidhi marka wuxuu yidhi nin baa ka kaxay odayoo abgaalo wuxuu yidhi buu yidhi war hoy waxa tukaraq ka taagan haddii ay yihiin daarood badirna ha nanoo sheego hadday puntland iyo somaliland yihiinna ha nanoo sheego ninkii si guud oo soomaalinimaan u wada hadlaynaya waxaan arkay waxaan ku dullaabna macnaha waxaa weeye annagu waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed oo kale afkoodu ha bateen cidda khaldan ee dulimaadka wadaa ha kacdo qofkiina soo waxoo soomaalida kale ah ha yidhaahdo isaaq wuu khaldan yahay sool iyo sanaagna ma lahane labadii gaatamood ha tago afkoodu ha bato annaga wax kaloo ay nagu maslaxi karaan ma jira diikar baan ka qaadaynaa waxa ay noola yimaadaan absolutely maslaxad kale oo soomaaliya inoola imanayo aan garnaqaynin dee yeeli mayno hadda gabadhii ila hadlaysay soomaad maqlayn gabadh marna waytay ila hadlaysay naftirkiisa dhaliil baan u haynaa maalin walba ku haya dagaalka tukaraq ka socda hala joojiya ha yidhaahdo tukaraq niyo xaqdarraa ka jirtay ummadda soomaalida wakiil baan ka wadahay inta khaldan ha ka tagta deegaanada shacabkana madax baan u nahay rabitaankooda absolutely inaadero waa midkaasna waa lama huraan weeye maxamed cabdilaahi farmaajo daaroodaan isku ahaano laakiin nin soomaaliyeed baan ahay
sharciga ayaa qoraya inuu xuquuqdayda ilaasho beel dhan baanu noo dhulbaanta la yidhaahdo warsangeli baana la yidhaha harti baana la yidhaha dhulkayagii baa maqan inuu ka hadlaaba madaxweynaha Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed uu dhanbu madaxweyne u yahay absolutely xaraan weyn inuu anaga qabiil lagu raaco kama rabno inuu qabiil lagu raaco absolutely waxa isaga toobkiisu yahay war wixii xaqa sheegday sax waxa xaqa ha sheego absolutely dadkan ku hayo tukarraq baan u soconnaa waxaa soo haray annagu wax badan baan dhagaha kaagayna waanu ognahay caraanta ku socota cabdiwala caligaas heshiiskii abeen dhaweyto ay hay'adan la yiraahdo international crisis group waxay soo saartay inay dhageysanayseen maaqaane heshiis hore oo Ethiopia ay ka dambeysay ilaa sac kontraktigaas la galo isla markaasna waxay sheegtay in baaq halkaas waxay sheegtay in maaragtay dagaalkaas la joojiyo Ethiopia-na loo kala si ay dagaalkaas u baritaa daba iyadu ay u dhaxdhigtay halkaa waxaa ka cadbaa bulshada meelaha haystay Ethiopia beesha caalamka inay reer Somaliland ku qalbiyaan sacaanood jooga qoladan madaxtooyada garow waxa kuntana inay tiri la tukarraq jooga halkaas waxbaa ka muuqda wixii hore maslaxad ah baa fara ah baan hadda meesha ku jira waxaa socota waan baan garaynaa inaan muusabin ka tagno tukarraq oo idinku markaas iska tagtaan wixii aad ka dhuuqi lahaydeen ba ka dhuuqdaan ayaguna ay halkaa iska tagaan ajendiguna annaga halkaa nooma saarna haddaan beelaha hafiyada ciidamada ku fahmaynahay ninkii mitaxaabin wada iyo ninkii dhibaato kala wada iyo ninkii meesha ciidamo beeleed oo iskood kusoo abaabulay baa jira maliisha ugu weyn waxaan saarayaa calooshooda ushaqaystayaasha ilaahay calooshaa ku dhexyaa xamar fadhiya maalin walba nimanka afar wasiirayaasha isaa oo tobanka afle ay ku yidhaahdaan Somaliland waa madax banaantoo dal midoobay baan ahan xuduudaheeduna waa muqaddas marna yidhaahda qarnimada Soomaaliya waa muqaddas asaguna waa fadhiya asagoo adjaan yuur moodaysa aad moodaysa dalka Soomaaliya inuu masuul yahay ilaahay labada xaniyood baa ku gooyo absolutely dhibaatada haysata iyo haysana waxaa weeye salay markuu hargeysa ingiriiska ka kicinayay ninka daarood wuxuu ilooday jigjiga inuu focus inuu jigjiga iyo gaari ka saaro u yeedo maantana kiyoo kuu wadaaya asagoo ku haya haddaad hadashid waxa lagu oranayaa qalintumis baa tahay baa nin aan kala xisoonayn waxa uu rabo baa hor fadhiya oo maalin walba kula soo dhigtanaag araada xuduudana waa muqaddas inaader Soomaaliya waxay ku qaybsatay 4.5 ninkii aaminsan 4.5 na waa inuu ku dhaqmaa 4.5 ninka daarood ee ka xishoonaya inuu dan daarood ka hadlo dee daarood meesha uma fadhiya marka isagaa dantiisa u fadhiya ama ummado kala keensaday hadduu madaxweyne yahay hadduu yahay cid kalaba madaxweynuhuna waa xaakinkii waddanka weeyaanay xaqa dadka u kala sheegi lahaa marka farmaajo laftiisu hadduu ka xishooday inuu war dhulbaanto waa laga gardaran yahay iyo warsageli adeero waxa way markaa annaga madaxweyne nooma aha kuwa meesha uu joogay foodkooda siiyana food khasaaro aha iyaga laftooduna dee waxay u joogaan baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose baanaan garanayn waayo mar haddaanay noo hadlayn aanay ka hadlayn kayskayaga dee ciday matalaan baanaan garanayn marka waxyaabo badan baa inaad meesha ku jira aad baanad ugu mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay anagu deegaankayga sidaan markubanahay jira caawna akhbaarta halkan ka baxaysa waa la wada arkaagtay waxaan ka sugaynaa Puntland dadka shacabka iyo dowladda iyo dhaqameedyadaba waxaan ka sugaynaa warcad haddaan warkaa cad ka weyno waxbaa iska dilay arrintaasina sax ma aha absolutely waan kula qabaa thank you very much aad baad inaad rumaadsantahay jazaaka allah khair waa dalkaagu xadiis xigmada mahadsan waaye ninka la yidhaha maxamed kala gooye xageed kusoo hadlaysaa saaxib waxaan kaala soo hadlayaa Sweden aad iyo aad baan ku salaamayaa cilmi naaleeyow codkayga si fiican ku soo gaarayaa yarun codkan yar ku yara dar okay hadda waa sida hadda si fiican ma maqashaa okay way ku soco wada waa aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan asxaabta barnaamijka kula daadihinaysa ee hoos fadhida runtii dagaal baan sugaynay muddo dheer halgan badan iyo qaylo badan iyo dadaal waa lagu jiray laakiin waxaan u malaynayaa cilada taagan in ay tahay awood kore oo waxa United Nation iyo balaayo haday faraha la soo gasho Soomaali way iska tabar yar tahay waaye arrintan hadda reer Puntland ay dagaalka diyaarka u yihiin dhulkooda inay xoreystaan
culays inuu saaran yahan dareemayaa sababtoo ah dagaal baynu sugaynay guul baynu sugaynay dhulkeenna inaynu xoraysanaynu sugaynay laakiin way suurtageli laadahay marka cilada taagan waxbaa jiro hakinaya aynaan garanayn dabcan haa awood inaga weyn annaga shacab baynu nahay ra'yigeenna iyo taladeennaynu ka hadlaynaa balse ku xisaabtan adduunyadan waa la ismaamulaa waa la isu taliyaa been maaho dee waddan isagoo dhan dad ummad dhan oo ku nool gunno bani aadam siiyo oo adduun kale laga siiyo dee kulley waa khasab in taladooda cid kale ay gacanta ku hayso shaki kama jira taa haa dee caalamkana waad aragtay united nationka wax walba way ka hadleen way ka warhayaan awoodda ciidana meesha la geeyey dhaqdhaqaaqa wax walba way la socdaan weliba way ka digeen waayo ciidan aad fara badan baa meesha lasoo geeyey xoolo badan micnaha hadda dagaal qirka waa loo saaran yahay magacaaga igu celi waa maxamed bashiir maxamed kala gooye maxamedow inaadeerow su-aal baan ku weydiinaya hadda adduunku way ka warqabaan sida aad u sheegtay dagaalada iyo xaaladda ka jirta iyo ciidamada laysu urursanayay iyo hubkan iyo waxaan oo dhan at the same time anna waxaan qabaa in adduunkuna uu garanayo sababta la isku laynayo waxay tahay oo ay ugu horrayso deegaankan dhulbahanta iyo warsangeli leeyahay inuu deegaan yahay qabiil is ah oo aan marraba ka raalli ahayn go'itaanka nimankan ay doonayaan inay go'aan marka maxaa ay uga xoog badanaysaa waayo adduunka anigu ma maqlo iyagoo leh ma raba adduunka waxa u furan inay yidhahaan war dadkani waa dad fara badan deegaan weynna way degaan mar haddii muran arrinkan ka jiro maaha micne in loo bixiyo disputed land micnaheedu waxa weeye waa dhulkii laysku haystay dhulka laysku haystana dee dad baa ku jira marka macal dadkii baa ku jira marka dadkan laysku haysto adduunku wuxuu u qaadaa wax la yidhaha referendum oo uu weydiiyaa waxa ay doonayaan iyo rabitaankooda wuxuu yahay adduunkii markaa maxaa taa ka xidhaya muxuuse adduunku maanta igu imanaya uu leeyahay dagaalka ha gelin waa sax waa midda taagan nafteedii laga shaqeeyaa sax waa in laga shaqeeyaa waa in laga shaqeeyaa oo leeyahay nimankiina naalaha dagaalamina dhulkan waa laysku haystay disputed land baad u bixiseen ilaa iyo 91kii saasaa laysugu haysto khilaafkan u taagnaa waxba kama idinaan qabo waa 30 sannadood ku dhowaad maanta inaad tidhaahdaan la dagaalami maayo dee meeshii qiil looma hayo inay yidhaahdaan bay ahayn kuwan puntland jooga ee dowladda iyo kuwan dhulbahantay iyo warsangeliya siyaasiyiinta ee dowladda xamar ku jira waa sax waxaad ku garataa ragga madaxda ugu sarreeya puntland waad aragtay dhammaantood way dhaarteen ballanna waxay ku qaadeen dagaalkani inuusan istaagin raggii soo duulay xaqdarrada wadana ay meel iska saaraan ninka ragga ayna ballan markuu qaado waa dareemi kartaa dee hadalku waa ka dhab waana ka niyad maxaa sababay marka waa yahaye maxaa sababay 2 bilood bay already sii maraysaa maxaa sababay inuu dagaal dhici waayo oo dhulkii la xoreyn waayo oo la sar fadhiyo maxaa sababay waa su'aal meesha taala midweyne oo meesha taala yes kii xumaaya qaramada midoobay Afrika u qaabilsanaa uu yimid garow ka soo degay hargeysa ka degay kullu uu dhex maray si fiican buu ula socdaa interestiga meeshan ku jira waxa weeyaan labadan maamul goboleed Somaliland iyo Puntland waa laba maamul goboleed oo la maamusho oo danaha looga baahan yahay laga fujisto mar kastana wixii looga baahan yahay laga sameesto ma ahan dad awood leh ciidan kasta xataa ay kala haysa ad ciidanka Puntland ay haysato waa ciidamada Imaaraadka u shaqeyn jiray ee dahab ka guri jiray buuraha xataa lama dhihi jirin waxaad gurasaan maxay waxaad gurasaan shakhsi ma dhihi jirin ma fahamtay shacabku maalinta ay ka kacaan ay ka mudaharaadaan waxaan dooni mayna xataa ay dhahaan oo ay ka mudaharaadaan dadka oromada ay ka mudaharaadeen boosaaso ay dhahayeen ma doonayno oromada ha nooga baxda waddankayaga dhaqaalihii ayagaa qabsaday meel walba way oriyeen guryihii bay qabsadeen wayna kharibeen shacabku ay mudaharaadeen ciidamo u yimid oo laayay maxaa halkaas kaaga muuqanaya hal taleefon oo loo soo diray ayaa wax lagu yiri shacabkan xun ay qalqalinaya hal laay hal xiro dad baa meesha lagu dilay marka maamuladan waa la haystayaal waxaan in qabiil loo rogo u qabiil dagaalamo qabiil sharci ma qabto xaqiiqo ma la doonayaa qabiil sharci ma qabto haddii nimanka la yidhaahda majeerteen ee Puntland dagaalkan aysan qaadeen oo dhulkan aysan xoreynin dhulbahanta asaga ay xoreynaya ha garab istaagaan afkana ha ka daayaan ha yiraahdaan maamulka Puntland ma dagaalamaysa dadkii dhulka u lahaaba dhulkooda xoreysanaya xataa ha u bedelaan sheekada hana garab istaagaan iska dhigaan shaar ma taqaanaa shacab ha ku dagaalamaan qorigooda ha qaataan
ciidamad beeledkii baaba joogo diyaar ayaa kuwa xukunka qabanaya muxuu yahay ninka iga yimid aniga ninka biciid yahan iyo ninka reer maxamuud iyo ninka cumar maxamuud ee iga yimid halkaa mudug iyo meesha la DDS waxaa celinaya muxuu yahay weye maxaa qabanaya waa waxba ninka cismaan maxamuud iyo cali saleeman iyo siwaaqroon iyo haddii carab saalax iyo nimanka iga yimid halkaa iyo Indian Ocean sharci qabanaya ma jiraan waa sax marka waa sida aad sheegtay waxay ku wacan tahay mar haddii ay ka xishoonayaan oo ay leeyihiin wallahi anagu waa adduunkii baa nayidhi sidaa daadeer annagaan adduunka soqoona qabiil ahaan noo sii daaya wixii taakulaad na siinaysanna na siiya waa simple as that waa halka labaad waa simple tan labaad Soomaaliya adduunyadu in ay israacdo ma doonayso Soomaaliya inay kala go'do ay wadan walba raadinayaan Somaliland dhulka ay maanta sheeganayso oo ay doonayso inay la go'do wadamo badan baa ku taageersan oo waliba dariskaaga Ethiopia ay kow ka tahay lama danaynayo lamana eegayo dhulka cidda iskale iyo cidda deegaanka u ah ee waxa la eegayaa maamul goboleedkan yar ee soo go'aya ee adiga amarkaaga qaadanaya waxa doontidna aad ka samaysanaysid muhiimadu waa taas absolutely wad garta Soomaaliya yaa maamula Puntland iyo Somaliland ba Ethiopian ba maamula oo dhex taagan oo waxaan ku leeyahay xafiisyadooda fadhiya oo ma taqaana farta ugu yara farta waad ogeyd taariikhda markii dib loo raaco mid walba maalin wuxuu arrin jiray Addis Ababa madaxweyne soo mara labadoodaba oo Addis Ababa tagin ma jiro kun mar aan tagin maxaa halka kaaga muuqda waxa kaaga muuqda dadkan in ay yihiin dad la haystayaal oo la amraya oo aan tabar lahayn oo aad u jilicsan damiirkooduna uu ma taqaana dhintay wargaal balaascaano gabdhaha lagu xasuuqaya caruur baa lagu xasuuqaya dadkii u dhashay baa xabsi la geenaya $500 baa lagu soo deynaya gabadhaadi baa habeen mid oo la kaxaysanaya hortaada aadan waxba ka dhihi karin nolosha taala maxay tahay nolol ma taalo absolutely nin xuno caada qaata asoo sabidiisa iyo lacag u diridiisa iyo ma loo baahna war naftani mar bay baxdaa nin rago Ilaahay ka dhiga ama dhimo ama noolow laakiin ku dhimo xorriyad iyo adoo xaq u dagaalamaya iyo adoo dhulkaaga xoreysanaya waa raganimo dadku ma dhamaanayaan maanta markuu wiil dhasho wiil baa dhimanaya dadku ma dhamaadaan kii dhinta mid baa dhalanaya xisaabta lagu daro Puntland waxa ay u fadhido ma aha xaqiiqada 100 mar baa lagu xantay waa lagu sheegay Puntland waa faan socda tabar ma lahan bacbacdoodu waa maalmaha ugu horeeya wallahi oo billahi oo tallahi taas xaqiiqa runta aan isku sheegno aniga ka dhashay oo reer muduga oo ka soo jeeda gaalkacyo oo ah nin Cumar Xamuuda xaqiiqada marka laga hadlo Puntland waa maamul goboleedka Soomaali ugu liita weeyaan waa maamul goboleedka kaliya oo dhul uu leeyahay cid walba ay iska soo degto waxay doontana ka samaysato inaga cayn wax kala ma hayne maya caydu way wanaagsan tahay caydu waxay ku dareensiinaysaa xumaantaada runtu way wanaagsan tahay wax ka wanaagsan ma jirto laakiin inagu haddaynu hartinahay runta ma jecelin runta qofka sheega markaa waa in la celo Soomaalina waa in la qabnaa waan u malaynayaa way Soomaali maxay inaga qosay maanta anagayna haysataa Soomaali kale oo ku soo helinaysa iyo cid wada dantaada ku jirta ma lahan aday ku taagan tahay markii adigu arintu adiga ku staaran tahay xiniyay kaaga baahan tahay hadalkaaga ma baahna kaagamana baahna inaad bootaysid iyo inaad faanatid Cabdiwali Cali Gaas waa ninkii dhaaranayay wuxuu dhashay waan leenaynaa malakumoodkooda soo wata dhulka iyaga waan xoreysananaa ninkii 2 bilood ka hor hadalka dhahay ilaa haddana uu fadhiyaa caloosha iska bararsan waxaas maxay tahay marka waxaas waa damiir xumo waa dhiig xumo waxaas alxamdulillah caawo si fiican baynu tooshka ugu shidnay arrimahaas oo dhan iyaguna waa dhegaysanayaan biidnillahi kariim waan ahay maxaad qaadi kartaa miskiin xun baa tahay markii wax laga sheego Cumar Maxamuud ma ahan iyo kan ma ahan aad ku ordaan masaakiin baa tiine runta idin sheegina runta qaata waa in la dagaalamaa wax xunba ma oran wax xun ma oran waa dhaliil baad sheegaysaa dhaliil shurcay maaha ninkii u qaatay inaad caytamaysaan waa nin qaldan ma garat marka wixii inaadaro waxa weeye wax la sheego